in ka badan 20 wadan oo ku yaala qaradaha Afrika iyo sidoo kale Yurub waxa laga helay xanuun lagu magacaabo furuqa daanyeerka dadka ku nool qaarada Afrika ayaa iyagu xanuunkani cabsi daran ka muujiyay dalka Nigeria ayaa iyadu ah dalka ku yaala Afrika ee saameynta xooggan uu ku yeeshay xanuunkaasi waxaana dhawaan uu dalkaasi ku eedeeyay Mareykanka inuu xanuunkaasi ku fidinayo isla markaasina uu ku talaalayo bulshada kala duwan ee ku nool dalkaasi Nigeria haddaba balse aynu xanuunkaasi wax uga ogaano waxaanu khadka telefoonka ku wareysanay Dr. Ibrahim Duxul oo kamid ah saraakiisha wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland waqtigana ku sugan dalka Uganda isla markaasina ka diyaarinaya waxbarashada heerka labaad gaar ahaan kulliyadda ilaalinta deegaanka iyo maamulka duurjoogta in ugu horeyn in Dr. Ibrahim Duxul ku soo dhawo MMTV muxuu yahay xanuunkani maxaa sababa maxamed walaal aad iyo aad mahadsantahay waan dhawahay xanuunka furuqa daanyeerka waxa sababa nooc kamid ah fayraska oo loo yaqaano box virus waxayna aad ugu dhow yihiin fayraskii sababi jiray furuqa dadka ama small box kaasoo dad badan adduunka ka laayay lana daba jaray 1980 xanuunkani waxa uu ka soo gudbay oo markii ugu horeeyay la record gareeyay inuu soo gudbay ama laga helay daanyeerka 1958 koox daanyeeraba laga helay markaas oo loo bixiyay magaca xanuunkan loo yaqaano monkeypox ama furuqi daanyeerka 1970 xanuunkan waxa laga helay qofkii ugu horeeyay gaar ahaan Afrikada dhexe ama dalka loo yaqaano Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo xanuunkani guud ahaan wuxuu u qaybsamaa laba nooc mid loo yaqaano xanuunkii galbeedka Afrika Western Africa iyo mid loo yaqaano Gambian Basin ama Central Africa ama kii Afrikada dhexe labada qaybood labada nooc baa loo kala qaataa waxa aad u dhimasho badan xagga dadka marka loo eego oo ka Central Africa ka laga helo nooca loo yaqaano ay dadku dhimashada ku badan yihiin halka kaga yar yihiin ka kale loo yaqaano kan loogu magac daray galbeedka Afrika xanuunkan ilaa imaka sida uu dadka ugu waxa loo aqoonsaday horta inuu kamid yahay xanuunada zoonotic disease ee u kala gudba xayawaanka iyo dadka waxa markii hore sidoo kale imaka waxa laga helay noocyo kamid ah oo uu hooy u yahay ama host xayawaano kale sida noocyo kamid ah jiirka laga helo Gambia noocyo kamid ah bahalkan loo yaqaano ilaa 3 nooc oo kamid ah xayawaanka loo yaqaano dibigaalaha iyo xayawaan kale isagana loo yaqaano diamond oo isagana laga helo Afrika iyo Aasiya ku nool in xayawaanadana uu ku dhaco oo hooy u yahay baa la ogaaday waad mahadsantahay doctor maxay tahay calaamadaha lagu garan karo qofka uu hayo xanuunkani ha maxamed oo calaamadaha xanuunka wala lagu garan karo waxa kamid ah xumad madax xanuun murqa xanuun nabaro ama buusbuus jirka maqaarka sare daal iyo qandho xanuunkani waa run xanuunka dhimashadiisu qofka markuu ku dhaco dhimashadiisu ma badna ama waa 100% hal sida sheegtay hay'adda caafimaadka hay'adda ammaanka caafimaadka Ingiriisku waxaanu qofku kaga soo kaban karaa 3 ilaa 4 week waxaana sheegtay hay'adda ka hortagga xanuunada iyo xakamaynta CDC xarunteedu tahay dalka Mareykanka in xanuunkani uu saameyn baan ku leeyahay dadka difaaca jirkooda hooseeyo dadka laakiin difaaca jirkooda uu sareeyo aanu saameyn badan ku lahayn sidee ayuu xanuunkani doctor u fidi karaa in maxaa sababay in waqti xadirkan uu ku soo laba kacleeyo dunida maxamed waa run xanuunkan walaal wuxuu ku fidi karaa siyaabo fara badan sida sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka iyo wakaaladda xakamaynta ka hortagga iyo xakamaynta xanuunada ee CDC xanuunkan wuxuu ku fidi karaa 3 shay xagga dadka marka la eegayo dadka wuxuu soo gudbi karaa in dadku ay sheer gareeyaan waxyaabo badan sida dharka kale inay istaabtaan talabaad oo ay istaabtaan oo jirka qof xanuunkan qaba oo nabaradii dhaawacyadii qaba finankii leh biyaha laha inuu qof kala taabto oo ama nabar leh ama saasoo deedna saadicaan ka soo gudbo ta saddexaad ee dadka ugu gudbi karaa waxa weeye hindhisada in qof markuu hindhiso qof kale inay qof xanuunkan qaba markuu hindhiso in
ay neeftiisii ama dhibcadhibcihii qofka hindhadu hindhisada dhibcadhibcihii qofka ka yimi ay gaadhaan qofka kale. saddexdaasay xagga dadka ka gudbi karaa. xagga marka la eego daanyeerka, dadka wuxuu ugu soo gudbi karaa inay daanyeer xanuunkan qaba inay dadku ka ag dhowaadaan, inay hilibkiisa cunaan, in ay qalaan, ama inuu qaniino oo xayawaan xanuunkan qaba inuu qofkii qaniino. siyaabahaasuu xanuunkani ku fidi karaa ama ugu soo gudbi karaa dadka kale. su-aasha labaad oo ah maxaa waqti xaadirkan sababay inuu dib usoo laba kacleeyo, horta aniga si fiican looma garanayo waxa waqtigan sababay. inkastoo ay qaarkood leeyihiin waxaa sababay bahalka xanuunkan wuxuu aada ugu badan yahay dhulka miyiga iyo dhulka kulaylaha ama dadka dhulka kaymaha ama beeralayda. marka maadaama halkaa ku badan yahay dad badan waxay hay-adda WHO oo kale waxay sheegaysaa, hay-adda caafimaadka adduunka, inay sababto loo malaynayo inay sababeen in la jaray deegaan uu ku noolaan jiray daanyeerku, dabeedna sidaa dadku ay u gudbeen halkii uu xanuunkani ku ahaa degal fadhiga. ilaa imaka sanadihii u dambeeyey 2017 xanuunku markaasuu fiditaankiisu yar kacay, 18, 19, 20 buu xoog usii kacay, ilaa 22 imika haaf buu kacay, 22 waa kan adduunka oo dhan. 7 dal oo Afrika imika aad iyo aad buu ugu faafay, waxaana la hayaa kiisas gaadhaya 1400 kiis, ku dhawaad 1400 kiis. in ugu dambeyn doctor xanuunkani wax daawo oo ilaa hadda loo helay ma jirtaa? maxaad se adigu kula talin lahayd bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dunida si ay uga hortagaan xanuunkani? walaal maxamed aad mahadsan tahay. ugu dambeyntii ma xanuunkan dawo ma laha sida sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka iyo wakaaladda ka hortagga xanuunada iyo xakamayntooda ee CDC. balse waxaa qofku wuxuu isticmaali karaa waxyaabo qofka difaaciisa sare u soo qaadaya iyo kiniin antibiyootika. sidoo kale waxaa la isticmaali karaa oo imika dadka lagu daweeyaa tallaalkii small boxka ama furuqa, kaasoo dad badan oo la siiyay aada ugu wacnaadeen ama ku caafimaadeen inay ku reeyeen. ugu dambeyntii dadka tale ahaan waxaan usoo jeedin lahaa in bulshada la siiyo wacyigelin fara badan, inay bulshadeenu iswacyigeliso qaybta kale oo ka digtoonaadaan xanuunka. in qofka inay ilaaliyaan inay dadku kala durkaan, sidii xanuunkii covidkii oo kale inay dadku face mask qaataan ama afsaabkii, iyo in dadka qurbaha ka imanaya oo xanuunkaa aad iyo aad dalka usoo gelin karaa ay feejignaadaan, oo dadku markay dalka yimaadaan ama qofkii isaga shakiya xanuun uu iskarantiilo. qofkii iska shakiya tala ahaan intaasaan soo jeedin lahaa. aad iyo aad walaal mahadsanta. waad mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa Dr. Ibraahim Dhuxul oo ka mid ah dhalinyarta aqoon-yahanka ee reer Somaliland, gaar ahaan kuwa wax ka bartay culumta deegaanka. waqti xaadirkana wuxuu ku sugan yahay dalka Uganda oo ka diyaarinayo culumta waxbarashada heerka labaad ee masterta, gaar ahaan kulliyadda ilaalinta deegaanka iyo maamulka duurjoogta.